maxay dumarka u doorbidaan ragga adag ee aanu fiicnayn oo aanay u jeclaan wiilasha fiican ee galgacaylka iyo naxariista badan leh? Waa kuwan jawaab. Kow, sidee dumarka biology ahaan u samaysan yihiin. Dumarka samayskooda ayaa ah inay doorbidaan ragga xoogan, awoodda iyo saameynta adag leh, iskuna kalsoon. Haddii ay gabadhu kaa dareento in aad ugu baahan tahay, waxaa laga yaabaa inay taasi tilmaan been ah siiso gabadha. Tilmaantaasi oo ah inaad tahay nin daciif ah. Dumarka inta ugu badanaa waxa gabi ahaan bixisa rida ninka u muuqda inuu aad ugu baahan yahay. Hadalka oo gaaban, haddii aad gabadh xiriir la leedahay, aad ugu qaban lahayd jacayl iyo dareen. Sidoo kale baro sida mararka qaar xiiso loogu abuuro dibna looga yara goosto. Labo, dalabkaagun badnayn. Dumarka waxay u arkaan in ninka aad u soo jiidasho badan yahay kadib markay arkaan in dumarka kale ay sidoo kale ka helaan. Haddii aan si kale u dhigno, inta badan ee dalabkaagu badan yahay ee hablo badan ka helaan, waxay badinaysaa in aad u muuqato nin aad u soo jiidasho badan. Haddii aad noqoto nin gabadha aad ugu fiican, waxaa laga yaabaa inay u qaadato in afar, waxaad dhegaysatay oo aad rumaysay hadalka gabdhaha, bal waxaad weydiisaa gabadh kasta nooca ninka ay rabto. Waxay kugu jawaabi doontaa inay rabto nin fiican oo naxariis iyo galgacayl badan. Bal intaa kadib haddana sug inta ay qof xiriir la sameynayso ama ay qof jeclaanayso, waxaadna ogaan doontaa inay jeclaatay nin gabi ahaanba cagsi ku ah ninkii ay sheegaysay, oo kolkoolin aanan ka helayn, aana u jexan isla markaana aan dareenkiisu iyada u soo jeedin. Damaca ay gabadhaasi ka rabto inay ninkaasi ku soo xirogeliso oo ay ku guulaysato jacaylkiisa aan suurtagalka ahayn ayaa ku dhiirigeliya inay ninka ka daba dhacdo. Taasina waxay ku hogaamin doontaa inay ninka dareen iyo jacayl badan u qaado. Shan, waxay ku dhigatay keedka. Bini'aadamku badanaa wuxuu jecel yahay waxaanu heli karin, qofkuna badanaa wuxuu ka fikiraa waxaanu dhammayska u ahayn ee qabyada ka ah. Haddii gabadh aanu hubin in aad dhab ahaan u jeceshahay iyo in kale, wax badan ayay kaa fikiri doontaa. Balse haddii ay gabadhaas boqolkiiba boqol hubto in aan la'aanteed noolaa karin, aamintana inay iyada ku yeelatay oo aan meel kale ka tegi karin, waxaa laga yaabaa inay adig kaa xiiso dhacdo, dhinacna ay iska kaa leexiso oo ay raadiso nin kale oo xiiso badan ku abuura, isla markaana ay adag tahay in arrimihiisa si fudud lagu ogaado. Sida loo soo jiito gabdhaha, waxaa jira farqi aad u weyn oo u dhexeeya in aad nin rageed adag ahaato iyo in aad nin xun ahaato. Ninka gabdhaha soo jiita waa nin xoogan, isku kalsoon, joogistiisa la dareemo, naftiisana huwa, isla markaana burji leh. Maaha qof mar walba u heelan raaligelinta dadka, umana dhinto haddii lagu seero oo la diido. Haddii aad qaadato talooyinkan, aadna inta badan iska ilaaliso in aad noqoto qof baahi badan, waxaad noqon doontaa nin aad u soo jiita gabdhaha. Intaa waxaad ku sii darsataa in aad iska dhigto nin si fudud dareenkiisa lagu fahmo, isla markaana aan sahalnayn in dhayal lagu helo. Waxaadna ku guulaysan doontaa qalbiga gabadha aad jeceshahay.